waxaa dawladda Soomaaliya ay sheegtay inay hawadii Somaliland iyo Soomaaliya ay la soo wareegtaan la soo wareegi doonto ayadoo on laga wada tashan lagana heshiin arintaasi sida ku xusun heshiisyadii Istanbul 1 iyo Istanbul 2 ee ay dawladaha Soomaaliya iyo Somaliland kala saxeexdeen heshiisyada oo dhinaca Soomaaliya ka socon waayay arintaasi maamulka hawada oo keeni doonta karta khalkhal iyo jaawareed mas'uuliyadeedana dusha ay ka fuuli doonto cidii heshiiska ka baxday oo ah xukuumadda Soomaaliya waxaanu ugu baaqaynaa quruumaha midoobay hay'adda ICAO dawladaha dariska ah iyo cid walba oo daneynaysa nabadgelyada iyo hab u socodka duulimaadyada mandaqada waxaanu halkan ku cadaynaynaa inaan marnaba Somaliland ogolaan doonin in hawadeeda meel kale laga maamulo عبد محمد غضب waxaan jecelahay inaan weydiiyo arrintan ka hadashay maamulka hawada Somaliland iyo Soomaaliya dawladda Soomaaliya xaflad ayaa imka socota ay ku sheegayso inay hawadii si toos ah loo wareegayso qalab ahaan iyo farsamo ahaan guud ahaan laga maamuli doono hawadii la isku jiray Somaliland iyo Soomaaliya magaalada Muqdisho haddii ay kaas dhacdo oo ay arrintaasi ku guuleystaan in kala xafladinayaan idinka maxay idin gudbo horta sidii aan warbixintaba ku sheegay haddii la heshiisyo hore jiray Istanbul 1 Istanbul 2 marka waxaad wada tashi bay wax waliba ku fiican yihiin waana dhab weyn in xafladeynayaan oo xaq bay u leeyihiin qudhowdu ilaa waxa laga maamulayay Nairobi iyo meel kale laakiin saqaladka tay ku sameeyay waxa weeyaan innaka qudheena qalab baa laynoo keenaya la filaayo ilaa iyo December ay diinkeeda inuu dhamaado oo innakuna ay ku helishay marka diyaaraduhuna meel qura ma mari karayaan oo 100 wadan bay ka gudbayaan marka qawaaniintooda in la dhameeyo oo lagu socdo way diyaaraddu intay hawada xagga Soomaaliya ka timaado un break qaadan mayso ilaa Somaliland bidul maraysa marka wixii lagu heshiiyay ayay ka baxeen inkastoo hubo inaan wali qalabkoodu dhameeyeen bilaabeen laakiin se Ilaahay idinka waxaanu rajaynaynaa in ay ku soo noqdaan saaxadda wada hadalka oo qoladan ay ka oobaan noo dhaxaysa marka de waa hadii laakiin soo afduub dhaco waxa imanaya khalkhal iyo jahwareer xagii hawada Somaliland hawadeedana ayada iska leh dusheeda ayada iska leh maamulkeeda ayada iska leh ayada fasaxi karta ki dusheeda maraya iyo ki laakiin se mar walba aanu qaamo furan baan ku soo dhaweynaya hadii wada hadal iyo sidii hore iyo sawaabkii lagu soo noqonayo laakiin se taate waanu cadaynaynaa qaladka dhacay oo wixii lagu heshiiyay aha laakiin hadii ay ku guuleystaan way talaabada ay geliyaan maxayna helin waa isla su'aashii hore adigu soo weydiisay marka jawaabteedu hore kugu filan way maaraya Cabdulqaadir Baabay oo ku soo halkay watiif maanta xilwajinta qaladkaada Sibiiliya waxa sheegtay Soomaaliland waxay dal ictiraafay hawada lagu wareejiyay marka hadii Soomaaliya la ictiraafsan yahay oo hawadii lagu wareejiyo ka Soomaaliland ahaan hadalkiidii la xuquuqay maadaama dalka wuxuu noqonayaa hawadan soo dusheenii ma amba halayna ictiraafo amba yalayna ictiraafin nidaamkii ay ka hawanimada inaga dhaxeeya laakiin soo horta de hawadaadii adiga iska leh dhulkaageedan aad iska leh laakiin sahabu socodkii de diyaaradaha ya ayaa marka de kulay arbitration oo sameeyay ICAO way noo dhaxaysa oo qolada ICAO diyaaradaha Montreal way noo dhaxaysa oo heshiisyadooda oo dhan ayadana la ogeed markii aan saxaxanay
وهذا كل بيجي وسير في هورد ولسه هو بيسواه يطلق مي دقي سي صوماليا وهذا في عبد السعودي محامر كهلي يصدق تقول يقول شيء هودي أو يكبر حول هذا الشمال لا إلى السعودية ما جوابته سؤال شيء كده ويدين نقطة أنا خاطر المسؤولية دي بعض الساعة إذا دولنا والسوق ما كان يلا هي تاي لا شك سعره ما دام عيدوا هذا اللي دول يشيك تلاقي وقته ويصير كان ولسه هو ده فرق وكل شيء مرفع عن مرسو تروح السعودية يا محاكي اللي بيقول سياسي مرفع عن مرسو قلت واحد ينقر صحيح أنا واحد كلوا هذا اسطنبول 1 يا اسطنبول 2 مع انك سونيgan kulayl waraaqi weyn hor yaalaan raadiyadu way keenayaan oo ma garanaysaa ilaa December ayay dhamaanaysaa marka way soo bixi doontaa bal waxaan ku kalifay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi.